soo dhawaada saaxiib yaal mar kale filimku wuxuu ku bilaabanayaa 4 xubnood oo qoys ah. nin yiraahdo Ketek xaaskiisa Jankisan gabadhiisa Kim Jong wiilkiisa Kiwo waxay ku noolayeen meel hoos oo dabaqa basmante nolol adag ay ku jiraan si ay u noolaadaan. xaaladooda dhaqaale mid aad u liidata waxay sameyn jireen baakadaha biisa si ay lacag u helaan laakiin shaqadaas kuma filna inay daboosho qarashaadka guriga. maalmaha ka mid saaxiib jaamacadeed oo Kiwo guriga ugu soo booqday isigoo siiyay dhagax ayuu ku yiri Kiwo dhagaxan hoogi baa ku soo dhibay. dhagaxan waa mid gaar ah waxa la aaminsan in cid haysato dhagaxan nasiib farxad heli doonto. Kiwo wuxuu u sheegay saaxiibkiisa xaaladooda dhaqaale ee liidata. saaxiibkiisu wuxuu u sheegay in safar waxbarasho dibadda uga soo baxay. wuxuu ku yiri waxa bedeli kartaa shaqadeedii oo aad Ingiriis bari kartaa kabar aan horu bari jiray. Kiwo wuxuu u sheegay in weligiis uu jaamacad kelin sidaas darteed aysan u shaqaalay doonin. aniga ayaa ku qoray warqad tilmaamaysa inaad shaqada mutaysatay walaashaadan weydiiso inay ku sameeyso shahaado been ah. Kiwo walaashiisa oo shaqadeen graafiga u sameynayso shahaado been ah. markaas ayuu Kiwo tagay guriga gabadha wax ka bari lahaa. guriga waa mid aad weyn qurux badan. qoyska degan guriga waxa la yiraahdaa Barki oo sidoo kale ka kooban 4 xubnood sayga xaaska wiilka iyo gabadha. magaca gabadha wax la barayo waa Daahi. guriga sidoo kale waxa ka shaqeynay gabar xaas oo muddo dheer ka shaqeynaysay. Kiwo wuxuu iska muujinayay inuu yahay macallin karti leh. hooyada Daahi waa ku qanacdaa iyadoo lagu qanacay ayaa la shaqaaleysiiyay Kiwo. intaas kadib wuxuu ogaaday in wiil yar ee dhaleen oo la yiraahdo Disongi uu jecel yahay sawirada. waxaa la shaqaaleysiiyay macallin badan si uu bara farshaxanka laakiin ma jiro mid joogay. Kiwo wuxuu fikiray in walaashiisa fanaanad ay ku habooneed. wuxuu ku yiri hooyada Disongi saaxiibtay ayaan kula talinaya aad ay u taqaantaa farshaxanka. hooyada Disongi way aqbashay. Kiwo wuxuu walaashiisa u soo bandhigay magac been oo Jessica. magac dhabta looma sheegin si ay familku u ogaan inay qaraab yihiin. Kim Jong iyada ku jirta magac Jessica waxay noqotaa macallimada farshaxanka ee Disongi. iyada la yaab gelinaysa waxa ay sheegtay inay tahay farshaxan daaweeye arthritis. hadda labada walaalo ah Kiwo iyo Kim Jong waxay shaqo ka bilaabeen qoyska Baki. markii Jessica cashirkeedii ugu horeeyay bixisay ninkii guriga leh MR Barangi ayaa imaada. wuxuu u diray darawalkiisa inuu geeyo Jessica gurigeeda. darawalku uu geeyaa. Jessica waxay u sheegtay in darawalku ku diido saldhigga tareenka metro. darawalku yeelaa. Jessica iyada gaariga ku jirta waxay malaagaysaa khiyaano si darawalka looga shakiyo. ninka guriga leh wuu shakiyaa isigoo u maleynaya in darawalku xiriir leeyahay macallimada farshaxanka. wuxuu la wadaagaa shakikaas xaaskiisa. kadib xaaskiisa ayaa su'aal weydiisay Jessica. Jessica waxay u sheegtay in lagu diiday saldhigga tareenka metro taasoo hooyada guriga ku qanacday. ugu dambeyn darawalkii waa la eriyaa. Jessica waxay tan u sameysay in aabaheed lagu bedelo darawalkii hore. waxay u soo jeedisay inay qof aqoon leh u hayso darawal cusub oo ah aabaheeda. kiita aabaheeda ayaa la soo bandhigay shaqada isigoo u muuqda adeer dalawar ah. sidaas darteed aabaha walaashii walaalka waxay shaqo ka heleen qoyska Baak. waxay u shaqeynayaan si qoyska Baak ugu fahmaan inay qaraabo yihiin. dhanka kale Kiwo iyo Daahi waxay bilaabeen inay jeclaystaan. hadda Kiwo iyo Kim Jong waxa ay rabaan hooyada inay u helaan shaqada guriga. si ay hooyada u shaqaaleysiiyaan waa inay eriyaan shaqaalihii hore ee guriga ka shaqeynayay. way fikireen xeelad qof kasta wuxuu xasaasiyad ka qaadi karaa miraha daarta. sidaas darteed waxay ku siideen miraha daarta gabadhii hore si ay xasaasiyad ugu dhacdo. Ketek wuxuu isbitaal ka soo qaadaa sawir ay ku jirto isigoo ku dar sawir isagoo leeyahay. wuxuu tusiyaa hooyada guriga isigoo cadeynaya inay qabto cudurka qaaxada. hooyada guriga marka hore ma aaminaysa laakiin cadeymo badan kadib way aamintaa. marka la beach feed ayaa lagu saydaa gabadhii iyadoo cunto diyaarinaysa. gabadhii hore waxa ay bilaabaysaa qof cadaran tissue ay isticmaalayso ayaa lagu shubay suus cadaan ah. tani waxay ku qancisaa hooyada guriga inay rumaysato in gabadha ay qabto qaaxo. gabadhii hore waa la eriyaa. kadib aabaha qoyska Kim wuxuu hooyadiis u soo bandhigaa shaqada cunto karinta. ugu dambeyn xaaskiisa Jankisan ayaa la shaqaaleysiiyaa. hadda dhammaan afartoodii qoyska Kim waxay si qorsoodii ugu shaqeeyeen qoyska Baak. xaaladoodii nololeed way hagaagtaa waxayna helaan cunto iyo nolol wanaagsan. qoyska Baak waxa ay go'aansadeen inay u baxaan safar maalintii dhalashada Disongi. markii ay baxaan qoyska Kim waxay ku raaxaystaan guriga iyagoo u dabaaldegaya laakiin si lama filaan gambaleek albaabka ayaa yeera. gabadhii hore ee shaqaalaha ahaan jirtay ayaa taagan albaabka. waxay leedahay bacdeedii qalabkeygii ayaa guriga inga haray waxaan rabaa inaan qaato. Jankisan ayaa ogolaatay inay soo gasho. gabadhii waxay u socotaa dhanka basmeedka qolka hoose. alxiraale ayay la kulantaa. alaarmigu wuu guuxayaa. kadib marka laga saaro saxan xaniib ay albaab qarsoon ee ka soo baxa. wadadaas waxay si hoose ugu jiidaa meel qarsoon. waxaa yaala halkaas nin oo ah ninkii muddo 4 sano bar ku dhuumanayay meesha. qoyska Baak waxba kama oga. qoyskii hore u deganaa guriga ayaa lahaa sirtaas. gabadhii hore waxay ninkeeda halkaas ku qarisay sababta waxaa lagu lahaa deen badan oo lagu hanjab in la dili doono. gabadhii hore waxay ka codsataa Jankisan in toddobaadkii mar u keento cunto iyadoo u ballan qaadaysa inay lacag siinayso. Jankisan way diidaa waxay ugu hanjabtaa inay booliska wacdo. gabadhii hore aad bay u baryaysaa laakiin intaas oo dhan waxaa korka daawanaya qoyska Kim oo mar qura dhacaya markii mid kamid ah si kam u dhaco. gabadhii hore waxay sawiray muuqaal ka qabataa telefoonkeeda si ay ugu hanjabto. waxaa la ogaadaa in dhammaantood ay qoysiin si qiyaano ay ku heleen shaqo. waxay ugu hanjabtaa inay muuqaalkan u diri doonto qoyska Baak. waxay amar ku siisaa inay isku tagaan iyadoo muuqaal ka duubasa. kadibna qoyska Kim ayaa weerara. telefoonkeedii way ka qaadan oo muuqaalka way tirtiraan. waxaa bilaabmaya dagaal u dhaxeeya labada dhinac. isla markaas hooyada Baak ayaa soo wacaysa waxayna u sheegaysaa in safarkii la joojiyay roob xoogan dartii. isla
markaana ay ku soo jeedaan guriga. Waxay leedahay fadlan cuntada diyaari oo waxa uu sheegtay in guriga imaan doono 8 daqiiqo gudahood. Qoyska Kim waa inay guriga si degdeg ah ku nadiifiyaan iyagoo qabanay 4 qof aan weli gacanta ku hayaan. Qoyska Baag waxay guriga soo laabtaan 8 daqiiqo oo sax ah. Guriga way nadiifiyeen. Qoyska Baagna ma fahmin wax dhacay ka hor intayan imaan. Dhamaantood way isqariyeen iyagoo cunto cunaya. Mulkiilada guriga waxay u sheegtay Shankison in wiilkeedii uu martooda saaminkii dhalashadiisa. Markaas ayuu arkay wuxuu u maleynayay inuu yahay ruux, laakiin ma ahayn ruux ee wuxuu ahaa nin ka tirsan shaqaalaha guriga. Iidan u maleynayay inuu yahay ruux. Roob ayaa daayay. Wiilka Disonki wuxuu ka adkaystay inuu banaanka saxdo habeenkaas isagoo tande la saxday. Aabiis iyo hooyadiis waxay saxdeen qolka fadhiga si ay ilaaliyaan wiilkooda. Labadooda way sheekaysanayeen iyagoo jiifa sirta fadhiga. Halkii Kiiwa, Kinjong iyo Kiitig ay ku dhuumanayeen hoosta fadhiga. Ticket oo ah darwalkooda. Mulkiilaha guriga xaaskiis wuxuu u sheegay in darwalku uu leeyahay ur aan loo adkeysan karin. wuxuu ranka sheegayaa sababta deegaanka ay degiyiin meel wasakh ah sidaas darteed qoyska dhammaan urbaa ka jira dharkooda iyo jirkooda waxay maqlaan wada sheekaysigooda oo dhan way murugoodaan sababta disankii hore uu u jiri macallimiinteedii urbaa ka soo baxay sida darwalka iyo shaqaalaha guriga markaas kadib waxay isla kartay inay bedelaan shukmaanadooda iyo saabuuntooda balse urku wuxuu ka yimaanaa deegaanka ay degiyiin maahan jirkooda markii labadooda saaxdeen saddexdii qof waxay ka baxaan hoosta fadhiga oo waxay ku laabtaan dhulka hoose ee guriga roob xoog leh ayaa da'ayay markii gurigooda gaaraan waxay arkaan biyo oo baxay fadhiga guriga biyihii waxay guriga ka soo galeen daaqada furneed guriga maaha meel la dego markaas waxay u guuraan meel dad hurda ay jiifaan oo badan halkaasi habeenkaas ku qaataan Kinjong waxay wicitaankiisa mulkiilada guriga oo ka casuuntay inay macaan u noqoto wiilkooda farxadiisa darteed waxay sidoo kale ku casuuntay Kiiwa oo macaan kabadhooda markaas kadib waxay suuq u soo aadisay wax iibsato markii gaariga fadhiyay ur la yaab leh ka soo baxay darwalka waxayna gacanta saaratay sankeeda talaabadaas ayaa ka xanaajisay darwalka sababta ma jecla in si xun loola dhaqmo mulkiilada ma jecla inay si cad ugu falceliso laakiin waa qasab inay sameeyso xafladda ayaa la qabanaya Kiiwa iyo ardigiisa waxay kor u jiraan Kiiwa wuxuu weydiiyay ama u maleynaysaa inaan ka mid nahay waxay ku jawaabtay iyada madax ruuxiisa ha laakiin runtii ka mid maaha wuxuuna ka baqayaa haddii dadka dhulka hoose jooga ay soo baxaan sirtooda fashilmayso taas darteed wuxuu u qaadaa dhagaxii saaxiibkiisa hor u siiyay wuxuuna la tagaa dhagaxaas isigoo u socda dhulka hoose ee guriga halkaas oo yeelan shaqaalihii hore iyo ninkeeda shaqaalihii hore waxay dhimatay habeenkii markii la riday dhulka hoose waxay isku dayday inay ordo laakiin Jingisong ayaa cagteeda saartay taasoo keentay inay dhacdo oo dhimato qoyska oo dhan arintaas ma oga Kiiwa wuxuu gaaray dhulka hoose isigoo dhagaxiisita dhagaxii wuxuu ku dhacay dhulka laakiin si qorsoodi ay u soo qaatay wuxuu u yimid inuu dil labada qof ay sirtooda og si ay u ogaan cid kale ninka shaqaalaha guriga hadda xur wuxuu qabsan ninka isigoo xir ku xiray qoortiisa meelna ku xiray wuxuu qaaday dhagaxii isigoo ku dhow inuu madax kaga dhaco Kiiwa laakiin kuma dhicin Kiiwa wuxuu isku dayaa inuu baxsado laakiin uu dhaca kadibna uu dhaawacmay wuxuu gaaray xafladii wuxuu arkaa Kinjong oo keentay cake Disong wuxuu isla markiiba aqoonsaday wuxuu mindi kaga dhuftaa laabteedii isigoo si xun u dhaawacay aabaheed wuxuu cadaadiyay dhaawaca si ay dhigbax u yareyso laakiin dhaawaca ma mid daran Jingisong ayaa aragtay in gabadheedii la dhaawacay waxayna weerartaa ninka dagaal ayaa dhaxmar ugu dambeyntii Jingisong ayaa dishay ninka mulkiilaha guriga wuxuu isku dayaa inuu qaato furaha baabuurka ku hoos jirninkii dhintay markuu furaha qaadanayo wuxuu dareemayaa ur wuxuuna gacanta saartaa sankiisa Kiitig markuu arko sida uu la dhaqmayo wajigiisa wuu isbedelaa wuxuuna qaataa midi wuxuuna weeraraa mulkiilaha guriga sababtoo ah mulkiilaha wuxuu riyo furaha si wiilkiisa Mir Beelma isbitaalka u qaado laakiin gabadhiisii ayaa dhimanaysa mana jirto cid u gurmuta Kiitig wuxuu eegayaa mulkiilaha isigoo yaa badan wuuna xanaaqaa markii uu arkay isigoo san ka daboolaya wuxuu u soo arkay isigoo la mid ah shaqaalaha hoose wuxuuna ogaaday in dadkaas ay necab yihiin kuwa saboolka ah sababtaas darteed wuxuu dilay mulkiilaha kadibna Kiitig wuu baxsan wuuna qarsoomaa Kinjong way dhimataa laakiin Kiiwa ayaa badbaaday inkastoo cudur maskaxeed qabay hooyadii isigana waxaa lagu xukumaa khiyaano xatooyo isku xulafaysi laakiin maxkamaddu way fasaxday iyada degni la siiyay qoyska Baag waxay iibeen gurigooda oo ay jarmal cusub iibsadaan iyagoo aan ogaan taariikhda guriga Kiitig wili wuxuu ku dhuumanayaa dhulka hoose isigoo adeegsanaya iftiinka qarqarka leh wuxuu u diraa fariimo Mastercard ah si uu wiilkiisa u gudbiyo Mastercard wuxuu u fududeeyaa inuu fariinta u diro si sir ah wuxuuna iftiinka dimiyo oo shidaa si uu fariinta u gudbiyo wiilkiisa Kiiwa wuxuu indha iftiinka isigoo isticmaalaya durbadiisa fog ee indhindeenta wuxuu aqriyaa Mastercard wuxuuna ogaanayaa inuu abiis wili nool yahay uu ku xumaadaa dilkii u geystay mulkiilaha wuxuuna raagilin u sameeyaa isigoo sawirkiisa hortiisa taagan Kiiwa wuxuu leeyahay waxaan heli doonaa lacag badan waxaan iibsan doonaa gurigan adigana waxaad ka soo bixi doontaa dhulka hoose waxaan u maleeyaa in guriga iibsan doonaan aabiis si xor ugu soo bixin doono laakiin taasi waa mal abaal oo ma xaqiiqo filimkuna halkaas ayuu ku dhamaanayaa